بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إلهي توفيق دينا وفتشيو دمانتين أعماش صالحان الله ينقى أقبله. waxaa aada u badatay maalmahan su-aasha ku saabsan jumcadii iyo maalintii carafa ayaa iswaafaqaya, marka ma la soomayaa maalinta carafada mise la soomi maayo hadday jumcada waafaqdo. horta maalinta carafa soomitaankeedu waxay ku sugan tahay axaadiista nebiga sal alla alay wasalam, fadligeeduna wuxuu rasuulku ku sheegay sal alla alay wasalam 2 sano dembigooda in ilaahay ku dhaafayo dembigii sanadkii hore iyo sanadka soo socda. taa horta waa mashruuciyada maalinta carafa soomitaankeeda iyo ajirkeeda hadday jumco waafaqdo. jumcadana waxaa sugan axaadiid fara badan oo nabigu sal alla alay wasalam uu leeyahay laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdah, midkiin yuusan maalinta jumcada soomin ilaa inuu maalin ka hormariyo ama maalin ka dambaysiiyo mooye. waa lafdiga bukhaari iyo muslim ay soo saareen. waxaa kaloo isagana jira laa tasuumu yowma aljumucati mufradan, maalinta jumcada ha soomina isagoo keligii ah. axmed iyo nasaa-i keyrkood baa iyagana soo saaray. lafdi kale wuxuu leey rasuulku wuxuu reebay maalinta jumcada lagu gooni yeelo soon lagu gooni yeelo. marka carafadii iyo maalinta jumcadoo la diiday in soon lagu gooni yeelo iyo maalinkii carafada oo soonkeeda laysfaray hadday iswaafaqaan see baa la yeelayaa way su-aashu. jawaabtu waxa weeye culimada badankood waxay u badan yihiin axaadiista masalada ku soo aroortay markay iswaafajiyeen oo macno ay isugu timaado ay sameeyeen, waxay leeyihiin badankood in la soomo maalinta jumcada hadday carafo waafaqdo waa la soomi karaa bay leeyihiin. waxaase ka fiican in maalinka ka horeeya lala soo soomo oo khamiistoo kale lala soomo. haddiise laakiin uusan ruuxu khamiista soo soomin, jumcada keligeeda hadday carafo waafaqdo wuu soomi karayaa, lianna waxa weeye uma qastin inuu maalinta jumcada ku khaas yeelo soonka, laakiin sabab kalaa keentay oo carafo waafaqday ah. gaar ahaan hadday caado u ahaan jirtay inuu soomo iyadu kuma sii jirto, oo xadiidka abu hurayra fii saxiixi muslim ayaa nebigu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay laa takhusuu yowma aljumucati bisiyaamin min bayni alayaam ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum. maalinta jumcada ah soon ha ku gooni yeelina oo maalmaha kale ha kaga gooni yeelina ilaa inuu yahay soon uu ruuxu soomi jiray mooye. bimacnaa dad waxaa jira labada beriya isku xigta maalinna soomo maalinna afura, waa sawmu daawuud nebigu ku tilmaamay sal afdalu siyaam. marka hadday jumco kusoo hagaagto maalinkuu soomayay wuu soomi karayaa, leanna waxa weeye soom uu soomi jiray bay kusoo hagaagtay. carafa waa maalin la soomo, iyadana haddii kusoo hagaagto maalinkii la soomi jiray oo dadku soomi jireen oo carafa ay u soomi jireen umbaa jumco kusoo hagaagtay, ee qasadku jumcada in la soomo ma aha. taasaa waxay tilmaamaysaa in soonkeedu uusan dhib lahayn, balse si khilaafka ruuxu uga baxo taxadarkiisa u qaato inuu khamiista la soo soomaa fiican, kadibna jumcada uu markaasi uu maalinta carafaa soomo. soon siyaadana waa ku jirto, khamiistana si gooni uu nebigu u soomi jiray sal alla alay wasalam, oo asbuucii wuxuu soomi jiray khamiista iyo isniinta. marka khamiista soonkeediina waa ku jira ajirkeedii, jumcadii oo carafaana waa ku jirtaa. khilaafkii iyo masalada hadalkeedii oo ruuxu ka baxayna iyadana way ku jirtaa. hadday dhici weydo inuu ruuxu khamiista soo soomo jumcada keligeed ay soo gasho, soonka carafana uu ku aado, ma soomi karayaa? jawaabtu waa haa. saasayna culimmada jamaahiirtoodu ay qabaan salafan wa khalafan. culimmadii hore iyo kuwii dambeba saasaa loo badan yahay inuu soomi karo. maxaa yeelay markaasi jumcada ma aha ujeeddadu in lagu khaas yeelayo soonkan, nahyiguna takhsiis buu tilmaamayaa, ha ku khaas yeelina. qasadku ma aha inuu jumco ku khaas yeelayo, laakiin sabab baa timid oo maalin carafaha ku soo hagaagtay, sidaasuu marka u soomayaa. saasay jamaahiirtu masalada ku xalinayaan.
sidaas weeye marka